qaybo ka mid ah odayaasha waxgaradka magaalada Laascaanood ayaa soo dhaweeyay jidbanaynta ay ka wado wasaaradda howlaha guud iyo dawladda hoose ee magaalada Laascaanood kuwaas oo hadaladoodii ay ka mid ahaayeen sida tan waxaan Faarax Jaamac Xamiid waxaan waayeelka Laascaanood deegaanka u ah waxaan u arkaa maamulkan Laascaanood ka dhisan bilaabay inay aad iyo aad u fiican tahay bilicda magaalada la soo celiyo hadda waxaa socda olole ballaaran oo wixii wadooyinka xumeynayay amar lagu siiyay in la burburiyo dadkiina uu markaa qaatay oo dad wanaagsan yahay dadka iyo kuwa soo furiyay labadaba waan u mahadnaqayaa ilaahay baa mahad leh waayo rayiga ninka keenay iyo ninka furiya wasku okay waxaan haddaba leeyahay hala dhamaystiro oo dhulka sandaqadaha laga dumiyay qashin badan baa yaal aad bay u dayacan tahay halla kaamil yeelo wanaag oo halla nadiifiyo dhulka halla simo meesha biyo xidheenkii halla banneeyo hawshii aansaa lagaga hadhin degmada ama dadka degmada maamula ee xukuma cadow baa jira aan dadku aad wada ogeyn waa baxo wax la yiraahdo wax kasta cadow bay u yihiin dhirta cadow bay u yihiin oo isku maraan dhageedku waa qalalaa xooluhu waa cunaan oo wow cadow waa idlaadeen dadka wow cadow waa dad baa waxay ku wax magaratadu waxbay ku shubataa wuxuuna waa one time xanuun baa laga qaadi karaa waxaan leeyahay bacaha waxaan u sheegayaa maamulka degmada bacaha wax laga qabto dilaaga ee dhirta dilaya xoolaha dilaya dadka dilaya wax laga qabto bay soo jeeday odayaasha Laascaanood degan oday ka mid ah magacaygana waxa la yiraahdaa Maxamed Cabdi Cumar arrinta odaygu ka hadlay oo Faarax iga horeeyay waan taageerayaa oo waan la qabaa arrinta waxna waan ku darayaa horta dadku arrinkeen iyo aqbalkeen oo hadalka ay maamulku soo jeediyeen oo ka soo baxay dadku waa qaatay lama qasbin waxaan loo qaatay sida ay tahay baa loo arkay waxa loo arkay dan inay tahay waxa dhiman wax badan baa dhiman dadkuna isku awood maaha meeshiisa furan kara oo dhisan kara iyo niman furan karin oo dhisan karin labaduba waa jiraan in la eego dadka oo hoos loo eego oo la eego waa wax lagama maarmaan ah oo lala socdo oo dadka maamulka hayaa ninka furan kara iyo ninka aan furan karin la kala eego taas waa qodob wada doonayna waana waxa loo qaatay inaan oo haddii ay soo jeedeen raggu arrinkeen iyo aqbalkeen baan idinku mahadmaahay marka waxbaa dhiman waxa weeyaan waddada u baahan tahay waddada in la ballaadhiyo oo marar baa hataa bahasha yaryar oo dadka qaadqaada marka baabuurta waaweynay waaba iska maaragtay waaba mari kartaa mararka qaar laakiin waxa weeye waddada yar baa ka baxda soona gasha wadda anigu kale oo ka baxda oo qumaanta u baxda oo wadda loo yaqaan maaha meel rafa oo dee iska maaragtay qardajaaxa mooyaane markaa waxa weeyaan arrinta waddada in la ballaadhiyo waa lagama maarmaan arrinta in la ballaadhiyo waddada waa lagama maarmaan qorshaha magaalada Soomaaliya ah ay wado wasaaradda howlaha guud ee laga qaadayo jidadka sandaqadaha ku fadhiya dibna loo qaadayo oo laga qaadayo meesha ay ku yaaleen ee ahayd waddada qorshahaas waa qorshe fiican laakiin sandaqadaha waxaa ku nool oo ka shaqaysta oo noloshooda ka baari doona dad dan yar ah bulshaduna waxay isugu jirtaa dad wax haysta oo yaro badan iyo qolada yar oo noloshooda magaalada iyo ka baara sidaa daraaddeed dadka dan yarta ah sida ay ku dhisteen baa sandaqadaha markii hore adkayd waa dad
aad u danyara sidaa daraaddeed maamul isagaa dawladdii dadka isagaa dadka cashuur ka qaada isagaa dadka u dawlada isagaa hadday dhaqaalo noqoto dhaqaalo u haya sidaa daraaddeed dadkii inay guryaha daaraha degan ee waddooyinka ku jirana ha laga dumiyo. Cabdiqani Cali Faarax, Cabdiqani Video, CNA TV, magaalada Laascaanood.